toddobadan qof ee meeshan ku arkaysaan waxay dhaceen lacag gaadhaysa 40 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Eegada kuma dhihin 4,000 kuma dhihin 8,000 kumaanan dhihin 10,000 ee waxaan ku dhahay 40 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Ninkan meeshan ku arkaysaan wuxuu ahaa hogaamiyaha dhalinyartan waxan ka dambeeyay dhan bal lacagta muu wax naga soo gaarsiiyo intaan la xidhin dadkan iyagoo maxkamadda saaran ay garsoorayaasha mid ka mid ah intay gabar Soomaaliyeed u direen oo u dhiibeen lacag gaaraysa 120,000 ku dhaheen gabadhii Soomaaliyeed ninka intaad gurigiisa tagtid oo albaab ku gargaraacdid waxaad ku dhahdaa 120,000 qaado dadkan dambi ma lahana dhe lacagtan lacag ka badanna insha Allah way ku soo gaari doontaa ee macnaha 120,000kani ha ku ahaado horumaris insha Allah markaan meesha ka soo baxnana lacag inta ka badan ayaan ku siin doonaa ninkiina doqonnimadiisa nin Soomaaliya muuna hayne lacagtii uu diiday inuu qaato kadib dawladdu waxay dhahdayba maal isaga waan ka shikinay kiiskan kama sii shaqayn doono sababtoo ah dawladdu waxay ka shikidayba adreeskiisa iyo magaciisa sidii ku ogaadeen sababtoo ah gabadhu marka ay lacagta geysay guriga waxay ku dhawaaqday ninka magaciisa marka waxa la dhahay marka maxkamadda saaran yahay ninka magaciisa caadiga in la ogaado khalad waaye adreeskiisana in la ogaado khalad waaye marka sidii ku ogaadeen dadkani kadibna adu ninkii telefonkii waa laga qaaday macnaha wuxuu information hayo dhan jeelkan waa la geeyay waxaan lagu dhahay arintan intay meel u dhacayso adu waa xirnaani oo macnaha waa laga shaqeeyay waxa la isdhahay qofkan malaha uu la shaqeynayba dadka Soomaalida lacagta dhacay markii dib loo sii baaray waxa la ogaaday lacagta haaf inay guriga ku gateen iyo gaariyaal macnaha markan gaari ku leeyahay gaariyaashan caadiga kama hadlayaan waxaan ka hadlayaa gaariyaal gaaraya 100,000 120,000 70,000 80,000 90,000 oo dollar talo dadka lacagta intaas la eg dhacay Soomaaliya dabaqimay ku leeyihiin xilligan oo kale waxa aad uga faa'iideysta cunsuriyiinta kuwaasi oo lahaa dadkan qaxootiga ku imaaday sidee ku keeneen maskaxda ah dawladda dhaca manaha awooddaas yaa siiyay sidee inta u fikireen ay isku dhaheen dawladda waa dhici kartiin sidee macquul ku noqotay in loo qaban waayo dadkan iyagoo 40 milyan dhacay ilaa lacagtu 100,000 iyo 200,000 ma aha iyo 300,000 iyo 1 milyan ma waa 40 milyan lacag yar ma marka dawladdu maadaama isku sheegaysa inay tahay dawlad awood leh sababta ay dadkan la qaban weyday ka hor manaha lacagta markay dhacayeen maxay tahay dadka cunsuriyiinta ayaa waxa soo qoray oo manaha aad u dacwoonay wallahi marka horta aanu haddaan 40 milyan dhici lahaa Mareykanka ma sii joogeen de walaal wallahi da ama waddanka isaga laaban lahaa madubi iyo meelaha sadegi lahaa mid aan la yaabin waxa weeye in Soomaalidu balaayi ma ku sheegay Soomaalidu waa balaayo intay 40 milyan dhacayeen dawladda Mareykanka waxay qabanaysaa waxay ku mashquulsanayd 40 milyan lacag yar ma moogtay 100,000 oo dollar hadaa lagu soo hordhigaad yaabiba 1 milyan hadaa lagu soo hordhigaad yaabiba 4 milyan hadaa lagu soo hordhigaad yaabiba 40 milyan intay dhacayeen dawladda halkii ku mashquulsanayd ya Soomaalidu balaayo wallahi waddankooda intay burburiyeen ay waddamadii kala dhacayaan